daawadayaal halkaan ku suganahay waa deegaanka degmada Qadaaduma oo degmo ka tirsan degmooyinka gobolka Daawa waxa ku xeeran buuro aad u qurux badan oo dalxiiska ku haboon hadda waxaan saaranahay buur kamid ah buurahaasi aniga iyo dhalinyarada magaalada degmada Qadaaduma ayaa buurtan u soo baxnay hadda godkaasi ayaanu ka soo baxnay oo aan muddo u sii dhaadhacaynay goobtan waa goob ay ku taalo il burqanaysa oo biyo oo ay sheegeen in ay jilaal iyo guba ay burqadaan waa biyo aad u qurux badan oo markaas daawashada iyo maydhashada iyo intaba ku haboon qofkii maadaana uu jawi degan oo aad u nafisa u dareemayo marka dhalinyarta hadda igula sugan bal waxaan ka wareysan doonaa ishan biyaha ee burqanaysa taariikhdeeda iyo waxyaabaha ay ku haboon tahay iyo guud ahaanba degmada Qadaaduma buuraheeda iyo aageedan waxyaabaha ku haboon yahay ayaan weydiin doonaa Cabdinaasir maanta meel hoose ayaad la geysay ishan hoose ee noo qaadisay waxaan u maleyn ilaa yaraantii inaad hore u sii taqaan goobtan bal ka waran البيوت كان تاريخ ذا يوحيابي كوا بونتاي يولي بحجم جاي ليه magacaygu waa Cabdinaasir Isaaq Aadan waxaana madaxweynaha waxbarashada degmada Qadaaduma wareen horta degmada Qadaaduma waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka Daawa afartiisa degmo waxayna dhacdaa maartay xadka koonfureed ee dalka gobolka waxayna xal la leedahay dalka Kenya iyadoo xad kala leh laba gobolka Wajeer iyo gobolka Mandera County iyo xal la dhacdaa dhanka kale waxay xad kala leedahay degmada Mooyaale iyo degmada Mubaarak ee gobolka Daawo degmadani Qadaaduma waa degmo taariikh faac weyn leh waxayna ahayd maartay salligidii dargiga ciidamadii dargiga ayaa sallig halka ku lahaan jiray ayagoo halka maartay ka geysan jiray gabood fadla aad u badan marka maanta bal goobtan ku suganay ka waran goobtan hadda ku suganay waxa weeyaan biyo dhaca degmada Qadaaduma biyahani waxay ka soo burqadaan meel halkaana waxayna soo maraan ceelal la cabi jiray ilaa waayidii hore oo ceel gacmeedii ah oo dadku qoteen weeyaan ilaa dhowr iyo 10 ka sii badan ceelal waa weeyaan oo xoolaha iyo dadku ka cabi jireen marka biyahaani saad arkaysan dhagaxaanta iyo ka dul dhacaan ilaa waxay gaaraan halka hoose iyo galaan halka markay gaaraan meel dhulka ay sii galaano meel ay ka sii baxaan ma naqaan inta kadib maana sii raacin laakiin halka marka meesha ay biyo ka soo dhacaan waxay sii aadan dhagaxaanta ay ka hoos baxaan bay dalka Kenya sii galaan marka meel ka yar ka sokaysa jirto oo xilliyada roobka xilliyada soonka oo kale ay dhalinyaradu iyo cabinetka degmadu ay imaadaan oo meel lagu nastaa oo maaragtay dalxiis ahaan wanaagsan xilliyadu ay cadceed aad u soo kulaato kalena waxa loo yimaadaa in lagu nafiso isla markaana lagu qabayso isku qaboojiyo way bal biyaha sida u dhacaya marka maskaxdaada iyo aragaagu arkaan muxuu qofku dareemayaa yimaada biyaha horta goob haddaan si psychological ahaan u eegno waa goob qofku nafis ku dareemo marka uu soo soo dareemo maaragtay culays fara badan oo uu magaalada ama shaqada uu ku soo daalo ama culays kale ay ku soo furmaan haddii halka yimaado goob kale oo ma baahno lagu dabiib halkaana uu ku dabiib hospital kale iyo cid kale uma baahno halka markuu yimaado iska nafisiiba shaqadooda ciladooda meesha xoolo ma yimaadaan xoolo horta ma galaan waa dhagaxaas aad aragtay xoolaha way ku jajabaan ma soo galaan caruurta iyo dadka kalena ma soo galaan oo meel dhaan loo soo doontana maaha biyo loo soo dhaantaga maaha waa biyaha iska socday aragtay dhagaxaanta ka degay ninka tagi mooyee nin kalena halka ka degi kari maayo وبيجي معانا عبدتان كورون لقونا قبيسان كرو خانير بيليين إن يرو نسبة لا صعد نسبة واحد لقى حكى صوت القادان هذا هلك كهر ثلاثية يسوق قادان مركو واحد يرو نسبة أنا هين أنت كلوا بيجي سافية ومعانا نظيفة ويان واي بالشوي Qadaaduma iyo buuraheeda dhagaxaanta lafteeda badadka hadaad soo kasto horta Qadaaduma siiba gobolka Daawo waxyaabuhu aad ilaahay ku manaysto waxa kamid ah macdanta iyo kheyraadka dabiiciga markaanu leenahay buuraha aad aragteen dhagaxaanta maaragtay isdul saaran hadda saad haday arkaysan oo kale waxa jira dhagax sida bini'aadamka oo kale u samaysan oo aad moodin uu xamaalayo dhagax wax qof taagan oo wax dusha ku sido xamaalay wax sida UAG waa wuxuu ilaahay sameeyay laakiin ma wuxuu bilaad sameeyay halkan oo kale waxa ku taala meel buurta korkeeda waxa ku taala meel guuri camal ah oo aad haraadigi dadkii hore wax ka haraya waxa sar dhagax laga sameeyaa ku jirto waxa kale oo ku jiro alaab weelal dhagax ka samaysan dhagaxan ka samaysan oo waxaad moodaa qoomamkii hore inay halka guri ka dhisan jireen guri ahaan u isticmaali jireen sarar baa taalo alaab dhagax ka samaysan baa taala
waxaad moodaa qoomkii caad mu ahaa kuwa buuraha geli jiray inay halka degnaan jireen baad moodaaba markaad aragtay marka waa meel aad u wanaagsan jawgeedu saad aragtay buuraha ku wareegsan buurahan waa xadka Kenya hadda buurta ku muuqato waa xadka Kenya weeyaan xadka Ethiopia maapka Ethiopia markaad aragtay meel zigzag ah jirta zigzag waa buurta halka kaaga muuqato buurta marka waxa xadkana suusan u dhimin qolada Ingiriiska yaa wax ku daayso dhagaxna wax kama baxaanba dhulka uu iska cad yahay waa meel iska bannaan ma lunto raadka ma lumo ismana bedel weligii wax lagu shabayna garan mayno kulay marka geedna kama baxaba geedna kama bax marka waa meel saa u wanaagsan waxaad arkaysaan buuraha ku wada hareeraysan oo magaalada oo dhan mid kale waa meel goobiyada waagi hore gobolka uusan biyo lahayn waxa loo soo dhaantigi jiray ama loo soo xoolo way soo roori jireen degmada Qaadum ilaa wabiga meel kale ka dhaxaysa iyo goof goobiyodka waaga gobolkan oo dhanba halka biyo laga cabi jiray waxa ahayd goof leey oo biyo dabiici ceelal leh iyo Qaadum goof waxa weeyaan leey bay 10 kilomitir u jirta xarunta degmada xarunta gobolka Daawo leey waa xarunta gobolka Daawo 10 kilomitir bay u jirtaa xaga waxa lagu bixiyay dhanka galbeed weeyaan dhanka galbeed baa lagu soo bixiyay 10 kilomitir bay noo jirtaa ay u jirtaa marka taa iyo degmada Qaadum ceelasha degmada Qaadum iyo wabiga Daawo wax kale ka sokeeyo biyo oo wadanka lahaa maysan jirin marka goob loo soo xoolo ay soo aroori jireen biyo soo dadku ay biyo dhaan u imaan jireen bay ahayd oo ilaa waayada hore oo aad maaragtay ay dadku ugu xirnaa jireen marka waxaan soo jeedin lahayn horta degmada Qaadum waa biyaha aad aragteen biyo la'aan ma hayso waxay u baahan tahay maartin biyo gelin loo sameeyo biyaha nadiifka in shacabku la gaarsiiyo bay u baahan tahay بسم الله magacaygu waa Siyaad Ibrahim Ali waxaan ahay madaxweynaha xafiiska maaliyadda degmada Qaadum maanta halkaan ku suganahay waa meel il burqanayso oo ku caana oo degmada Qaadum lagu yaqaan magaalada waa il aad u weyn oo biyo fiican leh oo biyo aad u macaan oo meel ku haboon in wax lagu beerto inkastoo ay ku socdaan dhagaxa dusheeda laakiin waa biyo fiican oo aad u macaan oo la cabi karo oo la miiran karo weeyano marka si guud degmada Qaadum waxa lagu yaqaanaa ilooyin badan bay leedahay tana ugu weyn laakiin meelooyin badan oo jira oo buurooyin ka soo burqanayaan marka halkan jawigeedu waa meel aad u fiican oo dadku marka soo dacaysagaan dhammaan maamulkii iyo shacabku marka adcaydu kulaado xilliga jilaalka way socdaan biyahan marka xilli soon walba dadku halkan ay joogaan oo iska hasadaan waa meel aad u fiican oo biyo qabow leh jawiga marka halkan waa jawi aad u macaan oo dadku ay ku nastaan marka meel halka weeyaan marka aad u si guud degmadu waa meelaha lagu yaqaano iliyo badan oo burqanayso adig bal markaad aragto biyaha burqanaya iyo jawiga ka waran maxaad dareemaysaa ruuxi markuu halkan imaado wuxuu dareemayaa nafis buu dareemayaa nafis buu dareemayaa inuu ku meedho oo ku nasto oo ku daawado marka ayuu dareemayaa inkastoo maadaama biyuhu ay ku socdaan laba buurood dhexda ku soconayaan marka xaggi daawashadana aad bay ku fiican tahay dhinacaygan bidix waxaa fadhiya maxamuud bal ka waran maadaama madaxfisid biyahana tahay bal biyaha ku xeeran degmada Qaadum iyo waliba gaar ahaan biyahani taariikhdooda iyo hawshooda bal naga war magacaygu waa Maxamuud Abdul Kateelo waa madaxfisidka biyaha degmada Qaadum gaar ahaan meesha aan joogno waa goobiyodka degmada ka jira kolkii hore meelooyinka waxa dadka ka cabiri jirtay eel gacmeed ayaa la soo qodanaya biyo sidaas baa loo cabaya meesha waad arkaysaa sidii oo maaragtay oo biyo loo cifdiyay meelooyinka wixii xoolaha iyo dadka meesha ka dhigan meesha ma imaan karo sidaa darteed waa meel oo iska xiran oo dalciis la soo imaan kara loo cifdiyay waa meesha noocaas waay